asalaamu calaykum saaxiibayaal kusoo dhawaada 5 daqiiqo haddii marka ay kugu horreysatay ood halkan joogtid ha ilaawi inaad halkan rukumatid oo subscribe saartid maanta waxaynu falanqayn doonaa fanaanka sidoo kaleetona anjilaaga cabdiweli cumar sidoo kaleetona ay dadku u yaqaanaan markuu filimka jirayo jamaal cabdiweli oo loo yaqaano jamaal waxa uu ku dhashay magaalada muqdisho halkaas ayuu kusoo barbaaray waxbarashadiisana kusoo qaatay inkastoo uusan soo dhigin filimo hore balse waxa uu ku jiraa fanka isagoo jooga dalka Itoobiya ayaa waxa uu bilaabay inuu fanka soo galo wuxuu qaaday dhowr heesood oo hore loo qaaday kuwaas oo uu ku qaaday luqad aad u wanaagsan iyo cod aad iyo aad fasiix u ah aadna loola dhacay cabdiweli waxa uu heerka koowaad ee jaamacadda ku qaatay magaalada muqdisho heerkiisa labaad ee masterkana waxa uu ku qaatay isla magaalada muqdisho waxa uu ku biiray fanka haatana waxa uu noqday aktarkii ugu horreeyay ee jila filim tayadiisu sareyso ee Soomaaliya cabdiweli waxa uu qabaa ama xaas u ah xaawo degan oo ah fanaanad ka tirsan gobolada Waaberi waxaana isu dhaleen caruur ka sokow inuu yahay fanaan iyo jilaa cabdiweli waa aqoonyahan wax ku bartay magaalada muqdisho sidoo kale tan waxa uu u sharaxay yahay ka mid noqoshada xildhibaanada cusub ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya kursigaasi oo laga soo dooran doono magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan cabdiweli ayaa waxa uu noqonayaa mid ka mid ah jalayaashii ugu horreeyay ee Soomaaliyeed ama aktaradii ugu horreeyay ee saameynta wanaagsan ku yeeshay in dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada doonaya inay ka mid noqdaan jilayaasha Soomaaliyeed ee caanka ah inay jili karaan filimo iyo weliba muuqaallo aad u wanaagsan isla markaana ay xirfadooda ku shaqaysan karaan iyaga oo weliba wata howlo kaleeto oo noloshooda gaarka ah dad fara badan oo Soomaaliyeed ayaa waxa ay la dhaceen habjiliinkiisa iyo qaabka wanaagsan ee uu u jilay filimka habboon oo uu ka yahay actor dad fara badan ayaa waxay ku wareersanaayeen inuu leeyahay xaas taasi oo halkan ku cadeynay inuu qabo mid ka mid ah gobolada Waaberi oo la yiraahdo xaawo degan sawirkeeduna uu yahay kan halka ka muuqda haddii aad doonaysid muuqaal xiiso badan noocan fadlan halkan subscribe saar sidoo kaleetona haddii aad doonaysid inaad soo ogaatid waxaa laga yaqaano aktarada habboon waxaad ka daawan kartaa muuqaalka ka horreeyay oo aanu soo gelinay mahadsanidin